السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشا qiimaha qadarinta iyo qaayaha ilaga mudalow meel walbo aad joogtaan in marxalad walbo aad lagu daawaleysaan waxay la hawadeeda ka leedahay waqtigu haydii wanaagsanaado daawadayaal soo dhawaada waxaynu muuqaalkan ku eegi doonaa maxaad ka taqaanaa linka cusub ee noqday qofka ugu taajirsan adduunka Elon Musk ayaa noqday qofka ugu maalqabeensan caalamka kadib markii ay haltidiisu gaartay 185 bilyan oo dollar oo u dhiganta 136 bilyan oo geli ganacsadahan oo iska leh shirkadda gawaarida ee korontada ku shaqeysa soo saarta ee Tesla iyo sidoo kale shirkadda la yiraahdo SpaceX ee farsameysa dayax-gacmeedka ayaa darajada taajirnimada ee ugu sareysa caalamka galay kadib markii khamiistii aynu ka soo gudublay shirkadiisa Tesla ay kordhisay qiimaha saamiyada ay iibinayso waxa uu booska ugu sareysay ee taajirnimada ka saaray milkiilaha suuqa online-ka ee Amazon Jeff Bezos kaasi oo caalamka maalqabeelada ku hogaaminayay ilaa iyo sanadkii 2017 shirkadda gawaarida korontada ku shaqeysa ee Master Musk ee Tesla la yiraahdo waxa ay qiimaha ugu sareysa yeelatay sanadkan waxaana qiimaheeda suuqa uu gaaray 700 oo bilyan oo dollar oo u dhiganta 516 bilyan oo geli marka ugu horeysa maalintii Arbacadii aynu ka soo gudublay arintaasi waxay shirkadiisa ka dhigaysaa mid kaligeed ka qaalisan marka la isku wada daro qiimaha shirkadaha baabuurta soo saara ee ay ugu horeeyaan Toyota, Hyundai, GM iyo sidoo kale Ford Master Musk ayaa warkan markii ugu horeysay ee lagu dhawaaqay si cajiib ah uga falceliyay isaga oo qoraal uu soo dhigay qof Twitter-ka wax ku soo bandhiga warkaasi waxa la uu yiri waa arin la yaab leh haltada maalqabeenkan waxay sare u sii qaaday siyaasadda Mareykanka halkaasi oo xisbiga dimuqraadiga ay dhawaal kula wareegi doonaan maamulka aqalka sare ee sanadka Daniel Eves oo ah nin wax falanqeeya ayaa waxa uu qoray in sanadka ay awoodiisa la wareegeen waxayna dal ugu jirtaa shirkadaha soo saara gawaarida korontada ku shaqeeya haddana fikradda shirkadaha noocaasi ah waxa ay ku guuleysan doonaan sanadaha soo socda sida uu qabo faa'iidooyinka ka soo xarooda canshuuraha laga qaada gawaarida korontada ku shaqeeya ayaa sii badin doona dhaqaalaha Tesla oo hadda saameyn weyn ku leh dhaqdhaqaaqa suuqyada sida uu sheegay Master Eves Master Bezos ayaa sidoo kale dhaqaale badan ka faa'iiday xayiraadii fayraska corona maadaama shirkadiisa Amazon ee internetka wax ku iibisa lacag badan ka soo xareysay dadka ayagoo guryahooda jooga wax ka iibsanaya hase yeeshee 4% oo ka mid ah ganacsigiisii ayuu siiyay xaaskiisii hore Mackenzie Scott kadib markii ay kala tageen taasi oo Master Musk ka caawisay in uu kala wareego booska taajirnimada intii lagu guda jiray sanadkii dhamaaday ee 2020kii lacag dhan 140 bilyan oo dollar ayaa ku darsantay haltida Elon Musk sida uu shaaciyay wargeyska Bloomberg ee dhaqaalaha uu maalqabeenka haysta wax ka qora waxaana maalintii Isniinta ahayd ee la soo dhaafay la shaaciyay in haltida Elon Musk ay ahayd 167 bilyan oo dollar waxaase la yaab ku noqotay caalamka oo idil in Isniintii iyadoo ay ahayd haltidiisa 167 bilyan oo dollar haddana khamiistii aynu ka soo gudublay ee haltidiisa gaartay 185 bilyan oo dollar taasi oo ah wax aan si fudud uga dhaadhicin maskaxda bini'aadamka lacagtan waxay sabab u noqotay in Elon Musk uu dhowr darajo kor ugu kaco liiska bilyaneerada ugu haltida badan caalamka
bishii Nofembar ayay ahayd markii uu Elon Musk kaalinta ka saaray Bill Gates isagoo sidaas ku noqday qofka labaad ee ugu taajirsan adduunka. balse waxaa xusid mudan in khamiistii aynu ka soo gudublay uu booska ka saaray Jeff Bezos isagoo noqday qofka koowaad ee ugu hantida badan adduunka oo dhan. sida uu xusay wargeyska qiimeeya dhaqaalaha ay dadku sameeyaan ee The Forbes la yiraahdo, waxa uu Elon Musk noqday qofka ugu hantida badan sameeyay hal sano gudahood intii uu wargeyskaasi waday qiimeyntiisa. haddaba daawada haddii muuqaalkan uu ku cajab geliyo oo aad wax ka faa'iida laagi loo saar si la sheergaro oo asxaabtaada la wadaag. mahad salid.